وبالوالدين إحسانا في سورة البقرة، النساء، أنعام، إسراء. في سورة الأحقافنا وبوالديه إحسانا. شنطة آيادود إلهي إحسان بكت المامين الله سمعيه. في سورة العنكبوتنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي إلهي تلمامية. في سورة اللقمان إلهي وحد المامية أيضا مطلقة، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. markaan intaa isku darro toddobada aayadood ixsaan iyo xusni sheegaya waa in waalidka loo samafalo. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaad badan oo kale qur-aana buu kaga warramayaa waalidka iyo sida loogu samafalayo. waxaa kaloo qur-aanku inoo tilmaamayaa u samafalka waalidku inaanu ku xidhnayn diinta uu haysto. waalidku inuu muslim yahay iyo inuu gaal yahay, inuu faasiq yahay iyo inuu faajir yahay midnaba kuma xidhna. hadduu waalid ba noqdo uu sifadaasi leeyahay inuu waalid yahay, wuxuu leeyahay in loo samafalo. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilm falaa tuطichuma wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa baa ilaahay tilmaamaya. wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa. labada waalid ilaahay wixii xaggiisa ah hadday ku yidhaahdaan ka taka ka aqbalin baa la yidhi. ama waxa ka soo hadha wasaaxibhumaa fi dunya macruufa laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim ina allaha yuxibu lmuqsitiin. labada aayadoodaan akhriyay labadaba ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa waalidku inuu samafal leeyahay, adduunkan loogu samafalayo, diinta uu haystaa waxay doontaba ha noqotee. sidaa awgeed waxaad dareemaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mansilada waalidka sida uu u xoojiyey ama se uga warramayo. bale marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada qur-aanka ku ammaanaya nebiye ka mida ilaahay wuxuu ku ammaanay inay waalidkood qaar u samafalo ahaayeen. saa daraaddeed baa ilaahay nebi yaxya wuxuu ku tilmaamayaa wabaran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran casiya, inuu ahaa mid u samafala labadiisa waalid, mana ahayn baa ilaahay leeyahay jabbaaran casiya, mid jabaruud. yacnii labada aayadooda dambe aan tilmaami doono, aayaddan iyo aayadda dambeba ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa waalidka oo loo sabafali waayaa inay jabbaarnimo tahay. saa daraaddeed baa ilaahay nebi ciisena wuxuu ku tilmaamayaa wabaran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiya. waalidka markaas haddaad samafalkiisa ka tagto waa tajabbur iyo takabbur ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamaya. shaqi iyo cisina waa lagu tilmaamaya inuu qof caasiya yahay oo qof shaqiya yahay oo sifaadkaa xunxun leeyahay baa ilaahay ku sifaynaya, ambiyadana laga anfinaya inaanay taa lahayn. waxaa kuugu filan daacada waalid la ateeca iyo samafalkoodu halkay gaadhsiisan tahay qisada ilaahay inooga warramaya nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebi ibraahim in ilaahay u waxyooday inuu wiilkiisii ismaaciil ha qalo iyadoo la itixaamayo. dabeetana inankiisii muu u soo dhuumanin, mana luqunji baadhin, waxba kala toona kuma samayne war cad buu u sheegay oo ah yaa bunaya innii araa fi lmanaami annii adbaxuk fandur maada tara. wiilkaygiiyow ama wiil yarahaygiiyow, waxaa riyo laygu tusay, wa ru'ya alambiyaai waxyi, waxaa lay faray inaan ku gowraco, ee bal maxay adiga kula tahay buu weydiinayaa. waxaa la weydiinayaa nebi ismaaciil waxa weeyaan waa lagu gowracayaa iyo say kuula muuqataa. isna wuxuu leeya yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin. aabba wixii alla ku faray yeel, waxaad i heli doontaa haddii rabbi xukumo anigoo ka mida inta sabirta. wuxuu ku ateecayaa aabbihii inuu gowraco bireeyo. wax ka sokeeya markaa maxaad u malaynaysa? wax ka sokeeya nolosha halkay gaadhsiisantahay haddii ilaahay uu rasuulkan ku tilmaamayo inuu aabbihii ku ateecay inuu gowraca aqbalo. idan labada waalid samafalkoodu waa min addiin. waxaanay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaahay qur-aanka inugu faray, nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisuna in badan ay tilmaamayso.
iyadoo loo samafali waayana wuxuu nebigu ku tilmaamaya inuu malcuun yahay malcuun inuu yahay labada waalid ninka caaq ku noqda ama axaadiista waxay ku tilmaamaysaa kabaa'irta waaweyn inay ka tirsan tahay cuquuqul waalideynku sidaa awgood waxaan waxoogaa ka tilmaami doonaa waxoogaa axaadiisa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday oo uu tilmaamaya mansilada ay gaadhsiisan yihiin saxaabigii la odhan jiray xaarisata bnu nucmaan xadiidka ibnu xibbaan warinayo sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamayo wuxuu nebigu leeyahy baynamaa ana aduuru fi ljanna samictu sawta qaari faqultu man haada faqaaluu xaarisata bnu nucmaanin kadalika albir anigoo jannada maraya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ayaan sawd qur'aan nin akhrinaya maqlay dabeetana waa kuma baan idha waa xaarisata bnu nucmaan baa la yidhi yani nebi maxamed wuxuu tilmaamayaa wiilkani samafalku kadalika albiri buu nebigu ku tilmaamayay waxaa kuugu filan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay taabiciintaba ninka ugu fadli badani inuu yahay ina khayru taabiciin rajulu yuqaalu lahu uways walahu waalidat wakana bihi bayaad famuruuhu falyastagfir lakum taabiciin waxa u khayr badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin uways la yidhaahdo ninkaa wuxuu nebigu ku sifeeyey hooyuu lahaa waana u samafali jiray baras buu qabay cudurkan caddeeya dadka diirka ka roga ilaahay buu baryay subxaanahu wa tacaala dabeetana ilaahay waa ka fayday waxaa kaloo nebigu tilmaamayaa saxaabadiisii buu ku leeyahy haddaa aragtaan dembi dhaaf ilaahay noo weydi ku dhaha cumar binu lkhadaab baa wuxuu raadiyey xadiidka saxiixu muslim ku yaalla markay reer muraad ama qaran qabiil yaman u dhashay markay yimaadeen ayuu ka dhex raadiyaa madadkii iman jiray ciidamadii ku socday frontka dagaalada jihaadka ahaa ayuu weydiin jiray war maydinku jiraa ninkaasi akhiiran waa loo tilmaamay xadiidka lafdigiisu waa dheer iyo isagoo kooban baynu tilmaamaynaa waa loo tilmaamay wuu helay ninkii war barastii ninka ka bogsaday barta yare cadi ku hadhay adiga maye haa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii baan maqlo warkaa sheegaya ii ducee markaasuu u duceeyey kadib buu cumar waa amiiruulmu'miniin wuxuu yidhi xaggaad ku socotaa aan waaliga muslimiinta ee hore gofarnarka muslimka ee meesha aad ku socoto xukumaya aan waraaq kuugu qoree waxaan ka jeclahay buu yidhi waxaad sheegayso fii khabraa'i innaas inan ka tirsanaado dadka inta aan la dareemin inta aan la buunbuunin qofka muslimka ahi wuxuu jecel yahay alle agtiisa inuu ku weynaado laakiin dadka weynidoodu qiimo badan ma leh saa awgeed buu taabiciga kani wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan layba ogaanina aan sidaa ku tago beri dambe ayuu nin ka soo xajay yaman ayuu cumar qisadii u sheegay uu yidhi ninkaa maaragtay haa buu yidhi waxaan ka imi buu yidhi isagoo guri yaroo buula ku jira oo maryo dildillaacsan sita oo laa yaabah bihi nnaas dadku aanay waxba weydiinin markaasuu yidhi war ninkaa aad arkayso nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad aragtaan ka ducaysta oo ilaahay dembi dhaaf noo weydii ku dheh ninkii xajkii markuu ka noqday buu uways u tegey markaasuu yidhi waysow ii ducee ways baa yidhi adigaaba iminka xajka ka yimo camal saalixa soo sameeyey safarna ka soo galaya inoo ducee markaasuu yidhi maya adigu ducee dhowr jeer markuu ku celiyey ayuu ways markii dambe yidhi war ma cumar baad aragta markaasuu yidhi haa dabeetana waa u duceeyey cidna hay sheegin buu yidhi oo iskaga tegey burduu siiyey maro la xidha buu siiyey magaaladu waxay isweydiinaysay warkii uways ahaa maruu helay maanta talow yaa siiyey yacni ninkani faqri intuu ka qabo iyo xaalkiisu halkuu joogo iyo nebi maxamed halkuu gaadhsiinaya calayhi salaatu wasalaam waa laba kala fog dadka agtoodana waa ninkaa marada lagu jamanayo laleeyahay maanta maruu helaye xagguu marada ka keenay la isweydiinayo sidaa awgeed ayuha alxiba hadduu nebigu ku tilmaamayba ninkii u fiicnaa ama u khayr badnaa taabiciin sifada koowaad ee laynaga siiyey waxa weeyaan inuu waalidkii u samafali jiray waxaan si kooban u dul mari doonaa axaadiis nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatoo tilmaamaya waxyaabaha tusaale layna siinayo waxyaabaha loogu samafalo labada waalid qur-aanku wuxuu tilmaamay in hadalka loo dabciyo in loo dhimriyo in loo samafalo wixii wanaag oo dhan in loo qabto waxay yidhaahdaan
sida uu soo warinaya imaam albukhaariy fi ladab almufrad sheekh alalbanina saxiixa ku tilmaamayo abaa hurayra wuxuu arkay laba nin oo isdaba socda markaasuu midba wuxuu ku yidhi maa haadaa mink war ninkani muxuu kuu yahay markaasuu yidhi abi waa aabbahay waa laba nin oo wada socdo isdhalay ayuu abu hurayra arkay mid buu yidhi kani muxuu kuu yahay waa wiilkii markaasuu yidhi waa aabbahay abu hurayra wuxuu ku yidhi laa tusammihi bismih walaa tamshi amaamah walaa tajlis qablah aabbaha weligaa magaciisa ha ugu yeedhin buu yidhi hebelow ha ku odhanin hortiina ha soconin oo haddaa israacdaan ha ka horrayninoo aabbaha ayuu ku dabagelin haddaa fadhiisanaysaanna aabbaha hortii ha fadhiisanin buu abu hurayra ku leeyahy yacni wuxuu barayaa adabka qofka muslimkaa iyo waalidka sida uula dhaqmayo waxaynu naqaanaa samafalkooda nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa a wada maqashaan inta badan riyaadu saalixiinka ku qoran saddexdii nin ee godka galay ee roobka ka jirsada ee buurta dhagaxu ku soo dulundulcooday ee dabeetana uu daboolay waxay ku ducaysteen midba ducuu akhriyey midbaa ducadiisu waxay ahayd ilaahu waad og tahay inaan waalidkay u samafali jiray oo xoolaha markaan soo xareeyo carruurta iyo cidna inaanan waxba siin jirin inaan iyaga ugu horraysiiyo mooyaane labadiisii waalidoo waaweyn kadib ayaa maalin foofkii xooluhu la dheeraaday goor dambeoo habeena buu soo hoyday waalidkiioo gam'ay buu caanihii soo lusay deetana wuxuu is yidhi waalidka ha toosinin caadadaadiina ha baajinin oo caanaha cidna ha ka horsiinin carruurtiisiiyo halkan gaajaysan ayuu labadiisii waalid caana la dul fadhiistay dadka waaweyn waxaa lagu yaqaanaa inaanay hurdada aada uga boganin oo qofku markuu da' gaadho inta badan waa yara seexdaa waa soo toosa ilaahay ninka wuu itixaamo labadii waalidna indhaaba waa kala qaadi waayeen waa seexdee waagaa ku bariyey ilaah waad ogtay buu leeyay intaan caana la dul fadhiistay in waagu ii bariyey sidaan caanaha ula dul fadhiyay anigoo aan cid kala siinin ee ilaahu dhagaxa naga fayd buu leeyay yacni waa duco uu ilaahay ku baryayo inuu waalid u samafalay dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala ka fayday waxaa kaaga filan inaynu soo aroorino xadiidka ibnu maaja iyo khayrkiiba warinayaan ee jaabir ibnu cabdillaahi uu leeyay nin baa nebiga u yimi oo wuxuu yidhi inna lii maalan wa walada wa ina abii yuriida an yajtaaxa maali carruur iyo xoolaba waan leeyahay aabbana inuu xoolahayga qaataa buu doonayaa nebigu wuxuu ugu jawaabay anta wamaaluka liabiik adiga iyo xoolahaba aabbahabaa isku leh adigu mar haddii aabbaha ku leeyahay waxaad haysatana isagaa leh ee cabashadaa ha la imanin cabdillaahi ibnu cumar ibnu alkhadaab baa waxa u yimi nin la yidhaahdo taysalata ibnu mayaas taysala waa nin khawaarijtii ka mid ah khawaarijtuna afcaal badanoo xunxun bay sameeyeen deetana wuu toobad keenay markaasuu cabdillaahi ibnu cumar wuxuu ku leeyahay war wax badan baa iga dhacoo dhib ah maxaan sameeyaa intii aan khaarijiga ahaa xaruuriga ahaa wax badan baan sameeyey waa ka soo toobad keenaye maxaan sameeyaa ibnu cumar wuxuu ugu jawaabay atafraqu الnaar wa tuxibu an tadkhula aljanna naarta ma ka baqaysaa buu yidhi mase rabtaa inaad janno gasho dee ninkani wuxuu ugu yimi waa intaa haa buu yidhi ii wallah qaala axayun waalidaak war labadaadii waalid ma nool yihin buu ku yidhi qultu cindii ummi hooyaa joogta buu yidhi aabba ma noole eh qaala fawallaahi low alanta laha alkalaama waacamtaha aطacaama latadkhulanna aljannata ma jtanabta alkabaa'ir wuxuu ku yidhi ilaahay baan ku dhaartay haddaad hadalka u dabciso quudiso waxay cunto siiso jannaad geli haddaad dunuubta waaweyn iskaga tagta buu leeyay yacni ibnu cumar ninkaa khaarijnimada ka soo noqday le waa toobad keenay acmaasha wanaagga uu tilmaamayo inuu janno ku geli karo wuxuu u tilmaamaya inay tahay waalidka inuu u samafalo waalidka samafalkooda waxaad ka garan kartaa inay nusuustu in badan tilmaamaysa in la ateeco waa inagii soo marray qisadii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil dhex martay nebiguna calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu cumar oo gabadh guursaday oo jecel baa u yimi deetana wuxuu yidhi aabbahay ayaa gabadhaydii xaaskayga necebo wuxuu leeyahay fur kollay un waa wax diin ku saabsan dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu cabdillaahi ibnu cumar u yeedhay buu ku yidhi yaa cabdalla bnu cumar طalliq imra'atak cabdillaahi ibnu cumar ow gabadha fur buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ateec aabbaha mar kale nin baa u yimi abidarda saxaabigii la odhan jiray
markaasuu yidhi reer baan leeyay hooyadayna ma rabto waxay i faraysaa inaan furo abudardaa wuxuu leeyahay anigu waxaan maqlay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo leh alwaalidu awsatu abwaabi aljanna fain shi'ta faxaafid cala albaabi aw dayic anigu waxaan maqlay nebigoo leh waalidku waa awsat abwaabi aljanna albaabada jannada kuwa ugu fiican ama ka u dhexeeya weeyaan ee haddaad rabto dee ilaasho albaabka haddaad rabtana dee adigu iska dayacday ku jirtaa buu leeyahy maxaa loogu samafalayaa siiba dhallinta dambe odaygu qaadkuu cunay ama waxan buu sameeyaa ama kan buu sameeyaa waa sii cararaysaa maaha waa loo samafalayaa hadday xaqu sheegitayna waa loo sheegayaa haddaanu adiga kaa qaadanayna cid uu ka qaadanayo aad garanaysa aad u tilmaami doontaa ku dadaal waalidkaasi aanu naar u galeen hadduu jid naareed hayo kadub waxa kugu filan ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka markuu kaga warramayo nebi ibraahim iyo aabbihii siduu la hadlayay واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا siduu aabbihii u baryayo ee wanaagga ugu tilmaamaya qisada qur-aanka ku soo aroortay baa si cad inoogu tilmaamaysa aan tilmaamno abaa hurayre iyo qisadiisii saxiix ku soo aroortay abaa hurayra wuxuu leeyahay hooyaday baan u yeedhi jiray oo diinta ugu yeedhi jiray gaalad bay ahayd markaan diinta ugu yeedhanayana nebigay wax ka sheegi jirtay isagu wuxuu leeyahay kaalayoo islaamo diin buu ugu yeedhayaa iyana waxay ugu jawaabaysaa canaadnimo waxay ka qabto marka kan inay nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegto anoo ooyayaan haddana nebiga u tagaa buu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan idhaahdaa ilaahay rasuulkiisiiyo hooyaday baan diinta ugu yeedhay dabeetana wax xun oo adiga ku saabsan bay maqashiisay ilaahay ii bari buu abuu hurayra leeyahay nebi maxamed in ilaahay hooyaday hanuuniyo ilaahay ii weydii nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha kor taagoo rabbi baryay buu wuxuu leeyahay allaahumma hdi umma abi hurayra ilaahayow hanuuni abi hurayra hooyadii anigoo ducadii nebiga ku faraxsan buu yidhi baan dib u noqday markaan gurigii ku dhoway albaabkii ayay qajaftayda maqashay hooye sanqadhii bay maqashay guryuhuna albaab ma lahayne waa daah yaroo la iska duwo markaasay ku tidhi waar halkaaga joog markaasaan maqlay buu yidhi biyaha sanqadhoodii biyay isku shubaysaa ilaahay ducadii nebi maxamed buu aqbalay oo way islaamtay oo dabeetana gaalnimadii bay ka maydhanaysaa abuu hurayra intuu soo socday bay islaamtay markaasaan ay tidhi buu yidhi halkaaga joog kadib markii ay qubaysatay ay tidhi soo gal buu yidhi oo waxay igu tidhi yaa abaa hurayra ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh anigoo farxad haddana ooyayaan ku noqday buu yidhi nebiga markii hore isagoo ooyayo wixii nebiga laga sheegay iyo hooyadii gaalnimada haysatay ka ooyayuu yimi iminkana anoo ooyayaan nebiga ku noqday buu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan idhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo bushaarayso rabbi dacwadaadii waa aqbalay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ilaahay ammaanay oo khayr yidhi ayaan haddana abuu hurayra wuxuu leeyay waxaan ku idhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaad haddana ii baridaa anigiiyo hooyadayba in ilaahay dadkana jeclaysiiyo addoomaha alle in ilaahayna jeclaysiiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam mar kaluu abuu hurayre u duceeyey xadiidka saxiixu muslim buu ku yaalaayay allaahuma xabib cubaydaka haada yacni abuu hurayra wa ummahu ilaa cibaadika almu'miniin waxabib ilayhim almu'miniin nebigu wuxuu ugu duceeyey ilaahu addoonkaaga kan addoonyarahaaga kan abaa hurayre ah isaga iyo hooyadiiba ilaahu ummaddana jeclaysiya iyaguna ay jeclaadaan abaa hurayre waa idinkaa arkay oo xadiidka abaa hurayre laga waayo dadku maba rumaysna in badani idan waa jacayl loo qabo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ugu duceeyey waxaan leenahay ilaahay u bari diin ugu yeedh raalli ahaanshahooda raadi oo wax ay ka damqadaan haba yaraatee culammadu waxay dhahdaan cuquuqul waalideynka markay tacriifinayaan waa wax uu kahado waalidkaayo aad sheegta bay idhaahdaan ayankaan saa awgeed baa nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam rida arab fii rida alwaalid
وسخط الرب في سخط الوالد إلهي الرالي هانشيسي وحكو جرا والدك الرالي هانشيهيس عرض الله وحي كجرتا عرض والدك بالير والدك هداد كعريسيسو waxay u dhowday inaad rabbiga ka cadhaysiisay sida awgeed waxa uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inaad ku dadaasho u fiirso weligaaba cibaado badnow saxiixu muslimka qisadii kale ku taalay jurayj aan ku tilmaamo nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegay saddexdii ilmood ee dharabta ku hadlay waxa uu sheegay nin jurayj la yidhaahdaa inuu jiray oo caabid ah oo meel u baxay keligii meel uu ku cibaadaysto oo guri intuu dhistay dabaqa yara sare gala oo halkaa keligii ku cibaadaysta hooyadii baa soo booqato u timi dabeetana isagoo salaad xidhan bay u timiyo yaa jurayj bay tidhi ummii wa salaatii buu yidhi hooyo iyo salaad dabeetana salaaddu iska wato hooyo way iska noqoto maalin labaad bay timi sidii si leeg buu ugu yeedha haddana ninkani waa nin cibaado u go'ay hooyo iyo salaad buu yidhi dabeetana salaaddii buu iska wata mar saddexaad bay u timi sidii oo kala dhacday dabeetana way habaartay ninkan caabidkii halkaa ku jira ilaahu isaga iyo dumarka xunxun istus bay tidhi waxay ku habaartay isaga iyo muumisaadka dumarka xunxuni inay sarkaan waxaa la yidhaahdaa qisada meeshan waxaa deganayd gabadh aad u qurux badan oo haddana dumarka xun ka tirsan dabeetana iyadoo jurayj la ammaanayo cibaadadiisa laga warramayo ay maqashay waxay tidhi kaa sheegaysaan bal aniga igu dhiga waxaan ku sameeyo anaa idin tusi doona dadka badh baa shayaadiina oo xumaha jecel qof aan waxba u geysan bay waxay leedahay anaa xadhigga weydaarin doonay aniga igu sima way soo baxday jurayj waa isu bandhigtay laakiin ninkani cibaado u go'ay qowsaar ama dhoobisaa u taqaaniin mid xoolo raaco meesha jooga ayay gabadhii isu dhigtay ilmay dhasha yaa dhalay baa la yidhi ilmahana waxay tidhi jurayj baa dhalay jurayj baa sawmacadiisii baa la dumiyey meeshii uu ku cibaadaysan jiray baa la yidhi tuugga xumeeyo intuu hablaha u weydaartaa buu halkan wadaad iska dhigayaa waxaa dhacday markaa wuxuu yidhi war bal ilmaha u yeedha ilmihii baa la keenay ilmihii buu gujiyey laba ragcadood buu tukado kadib intuu ilmihii gujiyo yidhi man abuk war aabbaha waayo ilmihii yaraabaa ilaahay ka hadiyey wuxuu yidhi waa qowsaarka gela adhiga raaca waa ninka xoolaha jira qisadani laba wax bay tilmaamaysaa kow waxay tilmaamaysaa cibaadada anfaceeda waxay kaloo tilmaamaysaa weligaaba cibaado badno waa haddii odagiyo islaantu wax kaaga tagaan inaad khatar ku sugan tahay waayo islaantaasi habaarkay habaartay waa la istusay isaga iyo wixii ay ku habaartay isagana markii dambe ilaahay wuxuu ku badbaadiyey oo ku karaameeyey cibaadadiisii tirada badnayd ee uu samaynayey asalna waxaabay culammadu leeyihin faradka loogama baxo laakiin adoo sunno ku jira haddii waalidku yeedho waxaa waajib kugu ah inaad hee tidhaahdo waayo sunnuhu waa sunne waalidka inaad u jawaabtaana waa faral idan waa inaad ka baxdaa bay culammadu yidhaahdaan aad u jawaabtaa waalidka waxaynu tilmaamaynaa marka waalidka habaarkiisu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya axaadiista ka asaxday saddex baryo xagga alle lama celiyo waxaa ka mid ah dacwat lwaalid riwaayaadka qaarkoodna dacwat lwaalidi calaa waladih ayay tilmaamayaan habaarka uu habaaro waalid ilmihiisa wuu ku dhacaya siiba hooyooyinka waxaan leeyahay afkiinu yuu habaarka baranin inkaari kugu dhacday iyo habaar baad qabtaada iyo waxa kan habaar buu qabi uun in badanoo soomaali aan u taagla-ana islaamaha ku yidhi habaar baad qabtaa habaarkii loogu duceeyey bay qabaan idan waxa fiican qofka muslimka ah isaguna inuu wax fiican ku hadlo inaanu erayada xun carabkiisa barin saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay habaarka waalidku wuu dhacaa waxay leenahay waxaa ka mid ah waxyaabaha waalidka loogu samafalayo inaad asxaabtii waalidka isaga daaye cidduu la saaxiibkaa inaad xidhiidhiso haddaad ogtay cid aabbahaa ama hooyada ay ixtiraami jirto saaxiib ay la ahayd inaad xidhiidhiso cabdillaahi bnu cumar iyo ardaygiisii cabdillaahi ibnu dinaar taabicigii la odhan jiray iyagoo xaramka yimoo ka noqday dhexda maraya ayaa nin reer baadiyii ku soo baxay dabeetana ibnu cumar baa dameer uu fushanaana siiyey cumaamadiisiina u furay
عبد الله بن دينار baa wuxuu yidhi ibnu cumarow ninka kani waa reer baadiyuna wax yar bay ku qancaane haddaad cumaamadda siisay maxaa dameerka ugu dartay baa dameerkaaga iska fuushanaatay wuxuu ku yidhi ninka kana aabbihii ahlu wudd cumar buu ahaa aabbahay saaxiibkii buu ahaa markaa aabbahay dadkuu jeclaaya saaxiibka la ahaa mar hadduu wiil kan dhalay saas baan ku xidhiidhinayaa buu tilmaamaya silatu lwaalidi ahlu wudd abii nabigaa yidhi ina abar albir sama waxa ugu fiican xidhiidhka uu waalidku xidhiidhiyo dadkii waalidkii jeclaayeen waalidka ama aabbaha ha noqdo ama hooyada ha noqdee intay xidhiidhin jireen inaad xidhiidhiso qaababka loogu samafalo waxaa ka mid ah inaad ilaahay baryadiisa u badisid nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay camalka bini aadamku inuu go'o ilaa iyo 3 mooyaane 3daana waxaa ka mid ahaa waladin saalixin yadcu lahu wiil saalixa oo u soo duceeya bale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa jannada waalid ku jira ayaa darajadii uu lahaa kor looga qaadaa markaasuu yidhaahdaa annaa lihaada ilaahayow intan maan shaqaysanay xaggay ka timi fayuqaalu biistigfaari waladika lak waa dembi dhaafku ilmahaa dhashay ilaahay uu kuu soo weydiinayay subxaanahu wa tacaala aabbaha hadduu nool yihiyo hooyada hadday nool yihiyo hadday dhinteenba ilaahay uu bari hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba ilaahay uu bari wixii aad cibaado u samayn kartana u sameeye sharcigu baneeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay gabadh baa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa iyo hooyaday jaariyad baan siiyey dabeetana way dhimatay jaariyaddii waa tan odda igu soo noqotay maxaan sameeyaa waxay ka cabsatay in sadaqada laga aqbali waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi adiguna ajarkaagii waad heshay dhaxalkana ilaahay baa kuugu soo celiye qaado calaa kulli xaal waxay jeclayd inay xajta buu yidhi ka xaj waxaan ku soo koobayaa wixii cibaado sharcigu baneeyey taan sharcigu bannayn maaha wixii sharcigu baneeyey cibaado ana u samee wasala allahuma calaa muxamed